calansida media ugu imaa warar xaqiiqo ku saleysan sirar qarsoon warar degdeg ah fadlan nala joog oo subscribe saar channelkeena haddii aad nagu cusub tahay mahadsanid ninkii awoodda badnaa ee dowladii maxamed cabdilaahi farmaajo Fahad Yaasin oo xilka laga xayuubiyay saacado uun kadib xasan sheekh maxamuud oo xilkii ka qaaday Fahad Yaasin xaaji daahir madaxweynaha Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa la taliyaha amniga qaranka u magacaabay xuseen macalin oo hore u soo noqday la taliyaha amniga qaranka xilligii madaxweynihii hore Soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo Fahad Yaasin xaaji daahir ayaa ahaa ninkii ugu awoodda badnaa dowladda federaalka Soomaaliya shantii sano ee la soo dhaafay xuseen macalin ayaa sanadihii u dambeeyay madax ka ahaa macadka daraasaadka amniga ee Hiral oo isagu uu aas-aasay ninkan ayaa aad u naqdin jiray siyaasadii uu dalka ku maamuli jiray madaxweynihii hore Soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo oo uu mar u ahaa la taliyihiisa dhanka amniga waa xilkii labaad ee madaxweyne xasan sheekh maxamuud uu magacaabo xilli maanta uu xukunka dalka kala wareegay madaxweynihii hore Soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo dhinaca kale madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa wareegta uu soo saaray waxa uu maxamed amiin sheekh cusmaan ugu magacaabay xilka ku-xigeenka agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka Soomaaliya madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa alla ugu bariyay agaasime ku-xigeenka cusub in uu u fududeeyo mas'uuliyadda culus ee loo igmaday isagoona kula dardaarmay in uu si hufan oo daacadnimo leh ugu adeego qaranka Soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa goor sii horeysay oo maanta ah wuxuu agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka u magacaabay xuseen sheekh maxamuud oo hore u soo noqday senator laga soo doortay deegaanada koonfur galbeed waxaana xusid mudan in lafta gareen uu dhuunta u galay isla markaasina uu u diiday xildhibaannimada waa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga xasan sheekh maxamuud waxaana iminka lagu sharfay agaasimaha guud ee madaxtooyada qaranka mudane xasan sheekh maxamuud ayaa iminka bilaabay xilka qaadista dadkii la shaqayn jiray Fahad Yaasin isla markaasina waxaa la filayaa inuu magacaabo ra'iisul wasaaraha qaranka si kastaba ha ahaatee dad badan ayaa wadada ku soo jiro waxaana la filayaa in saacadaha soo socdo xilka laga qaado duqa muqdisho Umar Finish iyo ku-xigeenkiisa amniga Cali Jaab ku jire dhageystow ogow hadaadan xalka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka